أنا هيدتك دجان كرر سيناي marka waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka Banaadir inay muxuu ahay wadada sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax nooga qabtaan maadaama aan ku dhibaatoonsanahay oo muxuu ahay horteena xataa dhagxaan ay yeelaan meel soo maro ayna jirin maalmood waxaan dhahnaa waan dhisanaynaa muxuu ahay meesha wax ka dhisanaynaa rumeekii dhaqaladii oo ciidanka meesha dhagax jigo xiiraan dhagaxa amar la'aan aanu kuma bixi karo madaxa sare u taga saas lagu rijinaa marka arka dhinac kasta ku gubnay ganacsi meesano baabuurtii loo imaajirto waxaan loo ganacsi qalabka loo keenay jiray ما كان قارقعنك حتى أيام دبكم مراي أو رشيق محوات لوكيناي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا موسى علاد أنا يقول كسور جيد أو ما تقنا لا مكسارة يعني دكناي أساسك صباح يقول إنه دم أيوه هالسوي هاي عنشروا على يقالا دولته وحق عصينا ما تقنا إنه وحسبت اللي مادان مركز حتى هيدا ما له جن حتى ماشى وحلا لو خذ لواي بابور سجى لواي marka waxaan maamulka iyo gobolka Banaadir iyo dawladda waxaan ka codsanaynaa in ay mataqaana isbedel la yimaadaan dadka masaakiinka gudaha dumarabana ay mataqaana wax u qabtaan aniga Wasax Maxamed waxaan oo ah deegaanka xaafadda dhalinyarada xaafadda Wardigley qaasatan Sinai waa u jeedin wadadii aad u muhiimka ah oo astaanta qaran magaca qaran wadatay wadadii Janaal Daawud waa u jeedin waa generaalkii ugu horeeyay Soomaaliya oo astaan qaran u ah Soomaaliya wadadiisii loogu magac dirisaan ay u burbursan tahay dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir kullee inay arkaan waan filayaa balse inay wax ka qaban waa aad ayuu nasiib daro u tahay marka waxaan ka codsanaynaa qof allaala qofkii awooda dawladda iyo maamulka gobolka Banaadir inay wadada wax ka qabtaan dadka shacabka waa ku dhibaataysan yihiin mid meel laga baxsho ma lahan haddii inay qabanayaan meel ay soo maraan ma lahan waa saas marka waa wax aad loogu xumaaday in dawladda magac ay sheegato in waddankan dawlad jirto ay ka jirto wadadana saas u taalo waa wax aad iyo aad ayaan daruur marka waxaan loo dul qaadan kara maahan dadkan canshuur ay bixiyaan alla in wadada laga sameeyo iiraan waxay bixiyaan waa in la soo celiyaa maahan in baararka lagu cuno in maasuq lagu sameeyo maahan dadkan canshuurtooda soo celiya dalka waxa loogu qabto wadadii ugu horreysay xilligii dawladdii maxalliga xiray wadadii koowaad oo la dhagax dhigay waa wadadan intii isaga dambaysana waxa waaye waa laga warhayaa kan hadda joogto tii ka horreysay wadooyinkii waa la dayactiray xataa waxa daafaha magaalada la dhiso waa intana wax laga qabto waa maray marka waa dhibaato inteeda la guriyihii waa u jeedin dabaqyadii goobihii ganacsiga dukaamadii maqaayadihii marka intaan inay nagu fiirsato dawladda anagoo cashuur dhiibayna sanad walbana shati jarayno oo sanadkii maxaa la yidhaahdaa kii hore cashuurimaysidii kii hore maxaa la yidhahdaa mid kala jaraysaan la leeyahay maxaa la yidhahdaa arrinta haddana ganacsatadina aysan u dhib qabto goobihii ganacsiga danjarta maxaa la yidhahdaa aysan u dhibaatoodaan waa dhibaato waaye marka waa ayaan daro maxaa la yidhahdaa dhibaato jirto waaye mas-uuliyadda waxaa iskale labada degmo maxaa la yidhahdaa Boondheer iyo Wardigley laamiga labadaas soo qaybiyaa labada qayboodna waxaa mas-uuliyadda ka saaran maxaa la yidhahdaa dawladdii soo dirsatay gobolkii inay intuu tagaan ay cabashadan gudbiyaan mas-uuliyadda ayagaa iskale waxa waaye ilaahay hortiisa inay la hortegayaan maxaa la yidhahdaa mas-uuliyaddii ay qaadeen iyo dadka ay ka mas-uulka yihiin hal maxaa la yidhahdaa guddoomiye degmo oo waddada inta soo istaagay dhibaatada jirtay sheegayna ma jiro guddoomiyihii gobolka kadaalika dhowr guddoomiyaa isbeddeshay ayadoo waddada saan tahay marka waa dhibaataan ku qabnaa maxaa la yidhahdaa kaaryoolihii maxaa la yidhahdaa dukaamadan u adeegaya meeluu raashin soo marsiiya male qofkii maxaa la yidhahdaa meydkaaga guryaha hadda hortiina muuqdo qofkii laga bixinayo meel la marsiiya male maxaa la yidhahdaa umulisaa jirto gabdhaha uur leh meel lagu qaada male marka waa intaasoo dhibaataan in lagula fiirsado waa xaqdarray nagu tahay marka waxaan ka codsanaynaa dawladda dhex iyo gobolka Banaadir in arrintan wax laga qabto cid kasta oo wax ka qaban kartana ay ka qabato wadadan ayaa waxaa soo gaaray burbur xoogan oo halis gelin kara guryaha halkaasi ka agdhow waxayna saameyn ku yeelatay maristii shacabka halkaasi